haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa dalka Suudaan oo warar kala duwan aan idinkaga hayno ugu yaraan 15 shaqaalaha ayaa ku dhintay halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qayb ahaan uu dubay god dahab laga qodayay oo ku yaal deegaanka Samna ee gobolka Wadi Halfa ee waqooyiga Suudaan sida ay shaacisay shirkadda khayraadka macdanta Suudaan ee magaceeda loo soo gaabiyo SMRC shirkaddu waxay sheegtay in shaqaaluhu ay galeen godka macdanta ee lagu magacaabo Maxamed Tawfiiq inkastoo horey loo xiray kadib qiimayn farsamo iyo mid injineernimo oo lagu ogaaday inay halis weyn ku tahay badbaadada dadka burburka ayaa dhacay xilli gudaha ay ku jireen shaqaalaha waxaan halkaasi ku geeriyooday 15 qof mas'uuliyiintu waxay sheegeen in go'aanka lagu xiro macdanta qatarta ah lagu sameeyo daraasado farsamo oo ujeedadu ay tahay ilaalinta nolosha dadka iyo ka hortagga shilalka kooxo gurmadaha iyo samata bixin ayaa isla markiiba loo diray goobta iyagoo kaashanaya booliiska macdanta iyo sidoo kale maamulka deegaanka qaybta macdanta gaarka loo leeyahay ayaa shaqaalaysiisa in ka badan 2 milyan oo qof dalka Suudaan waxaana ay soo saartaa ku dhawaad 80% dahabka Suudaan kaas oo il muhiim ah oo dakhliga lacagaha qalaad u ah dalkaasi tani markii uu qarxay dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF bishii Abriil 2023 warbixino kala duwan ayaa sheegay in dakhliga dahabka uu door weyn ku leeyahay maalgelinta dagaalka colaaddu waxay sidoo kale ku qasabtay dad badan inay ka shaqeeyaan macdan aan lahayn heerar badbaado oo ku filan iyadoo qayb weyn oo dahabka dalka laga soo saaro la sheegay in si sharci darro ah loogu dhoofiyo dalal daris ah iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta war kale oo isla Suudaan la xiriira hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta ee UNICEF ayaa daboolka ka qaaday in ka badan 300 oo carruur ah lagu dilay ama lagu dhaawacay Suudaan 6 bilood ee la soo dhaafay iyadoo inta badan qasaaraha ay ka dhasheen weerar loo adeegsaday dayuuradaha aan duuriyaha lahayn ee droniska warsaxaafadeed ay hay'addu soo saartay isniintii ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 60% carruurta waxyeeladu ay soo gaartay ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen weerarada droniska UNICEF waxay xustay in dagaaladu ay si xooggan uga socdaan gobolada Kordofan Darfur iyo sidoo kale Niilka Buluuga ah hay'addu waxay sheegtay in weerarada droniska iyo madaafiicdu ay beegsadeen goobo ay dad rayid ah adeegsadaan sida iskuulo suuqyo xarumo shidaal iyo ceelal biyood taasi oo gelisay nolosha in ka badan 500 oo kun oo qof halisa dad badan ayaa sidoo kale muddo ka badan 1 sano ku noolaa xaalado go'doomin u eg carruurtu waxay ku dhex jiraan wareeg aan dhammaad lahayn oo rabshado iyo barakac ayuu yiri Sheldon Yett wakiilka UNICEF ee Suudaan qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dadka rayidka ah kaabayaasha muhiimka ah iyo inay fududeeyaan gaarsiinta gargaarka bini'aadantinimo dadka u baahan waa tahay warkaasi inta aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa NATO iyo kulanka maanta uga bilaabanaya waddanka Turkiga halkaasi oo iskugu tagi doonaan madaxda 32 dal oo ka socda NATO mas'uul sare oo Amerikaan ah ayaa daboolka ka qaaday in Washington aysan hadda qorsheynin inay ka baxdo isbahaysiga NATO balse ay doonayso inay yareyso kaalinta iyo tabarucaadka ay siiso gaashaanbuurta isagoo u wareejinaya Mareykanka dhaqaalihiisa iyo agabkiisa mudnaano amni oo caalami ah safiirka Mareykanka u fadhiya NATO Matthew Whitaker ayaa waraysi u siiyay telefishinka CNBC ee Mareykanka laga leeyahay waxa ku nuuxnuuxsaday in Washington ay weli si buuxda uga go'an tahay NATO inkastoo ay qorsheynayso inay qaadato door ka yar kii hore safiirka ayaa sidoo kale
wuxuu meesha ka saaray hadallada sheegaya inuu jiro qalalaaso u dhexeeya Maraykanka iyo NATO isagoo ku tilmaamay xaaladda hadda jirta mid laga gudbi karo. Waxaa hoosta uu ka xariiqay in Maraykanku dib u soo nooleeyay NATO kadib muddo uu ku tilmaamay in xulafadu ay ku jidhay fadhiidnimo. hadalka Whitaker ayaa imaanaya xilli hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka ah NATO maanta ay isugu imaan doonaan shir madaxeed ka dhici doona magaalada Ankara. shirka ayaa diiradda lagu saari doonaa kordhinta qarashaadka difaaca, mustaqbalka ciidanka Maraykanka ee Yurub iyo caqabadaha amni ee isbahaysiga wajahaya. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa marar badan wuxuu ku booriyey dalalka Yurub inay kordhiyaan qarashaadka military isagoo ku eedeeyey inaysan si siman uga qayb qaadan difaaca wadajirka ah ee NATO. shirkii NATO ee sanadkii 2025 lagu qabtay magaalada Hague ee waddanka Holland ayaa hogaamiyaasha ku heshiiyeen in dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurtu ay gaarsiiyaan qarashka difaaca 5% wax soo saarkooda gudaha marka la gaaro 2035. qorshahaas ayaa dhigaya in 3.5% loo qoondeeyo difaaca tooska, halka 5% loo isticmaalo maalgelinta amniga kaabayaasha la xiriira. war kale oo arrimahan la xiriira, Ruushka ayaa uga digay madaxda NATO ee ku shiraysa Ankara inay sii xoojiyaan xiisadda kala dhaxaysa Ruushka. agaasimaha waaxda Yurub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Vyacheslav Maslenikov, ayaa farta ku fiiqay in NATO ay sii wado ajende iska horimaadkan ah Moscow, iyadoo korinaysa buu yiri qarashaadka militariga, xoojinaysa warshadaha hubka, isla markaasna sii wada inay hubaysa Ukraine. wuxuu sheegay in tilaabooyinkaasi Ruushka ay u arkaan khatar toos ah oo ka dhana amnigiisa. waa tahay qodobkaasna intaas aynu kaga gudubno. waxaan u gudbaynaa warar la xiriira Israa'iil oo diiday inay cusboonaysiiso heshiiska biyaha ay ku siiso waddanka Jordan. waxaan kaloo idiin haynaa warbixin la xiriirta aaska hogaamiyihii sare ee waddankaasi Iiraan oo mar kale magaalada Qom maanta janaasada lagu tukanayo, iyo qaramada midoobay oo war ka soo saartay dhakhtar reer Gaza oo dhibaato culus ay ku haysato xabsiyada Israa'iil. intaan u gudbin qodobadaas aynu ku hakanno qadar xayeysiina ku xirna waajibayaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag, waxaan eegaynaa markan qaramada midoobay oo war culus ka soo saartay dhakhtar reer Gaza oo la sheegayo dhibaato culus inay ku haysato xabsiyada Israa'iil. haddaba arrintan iyo waxa laga qoray haddii aynu ku sii soconno, kooxda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo dhakhtar Xusaam Abu Safiya oo ah dhakhtar reer Gaza oo in muddo ku jira xabsiyada Israa'iil, iyadoo sheegtay qaramada midoobay in xarigiisu uu yahay mid sharci darro ah. sidoo kale ururada xuquuqda aadanaha iyo qareenkiisa ayaa ka digay noloshiisa inay halis ku jirto haddii aan si degdeg ah wax looga qaban. kooxda shaqada ee qaramada midoobay ee xariga sharci darrada ayaa sheegtay in xariga Abu Safiya uu jabinayo qodobo ka mid ah baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo heshiiska caalamiga ee xuquuqda madaniga iyo siyaasadda. hay'addu waxay sheegtay in xalku ku habboon yahay in si degdeg ah loo sii daayo Abu Safiya, isla markaasna la siiyo magdhow iyo xuquuqo kale oo waafaqsan qawaaniinta caalamiga. kooxdu waxay sidoo kale walaac ka muujisay kiiskan uuna muujin karo dhaqan ballaaran oo xarig sharci darro ah. dhinaca kale, adeega xabsiyada Israa'iil ayaa beeniyey eedamaha sheegaya in Abu Safiya iyo dhaqaatiir kale lagu dhibaateeyey xabsiga. dhakhtarkan marka wuxuu caan ku ahaa waqooyiga Maraykanka Gaza. cisbitaalka Kamal Cadwan ayuu ka howlgeli jiray. Israa'iil baa duqaysay, xitaa wiilkiisa ku dhintay. wuxuu diiday inuu ka taga meesha ilaa markii dambe la yiri soo bax oo gaarigaas taangiga ama gaadiidka dagaalka taangiga gudaha u gal. sidaas ayaa lagu watay. ninkan wuxuu diidanaa waqooyiga Maraykanka Gaza inuu ka baxo, xitaa isagoo dhaawacmay oo wiilkiisa lagu dilay ayuu shaqaynayay. hadda maxay keentay arrintiisi
qayldhan in laga muujinayo waynu arki doonaa wixii ku soo kordhay arrimahaasi wararka Israa'iiltana ka bixin Israa'iil ayaa waxa la sheegayaa inay diidan tahay inay dib u cusboonaysiiso heshiiska biyaha ay ku siiso waddanka Jordan arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli la sheegayo heshiiska inuu imika dhamaaday warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda Israa'iil ayaa ku waramaysa in Israa'iil aysan weli dib u cusboonaysin heshiiska biyaha ee kala dhaxeeya Jordan kaas oo salka ku haya heshiiskii nabadda ee labada dhinac ay kala saxiixdeen sanadkii 1994 hay'adda warbaahinta Israa'iil ee kan ayaa xalay baahisay in heshiiska uu Urdun u ogolaanayay inay hesho biyo dheeraad ah oo qiimo jaban lagu siiyo waxaana hakad ku jira heshiiskaasi ilaa iyo hadda ila Israa'iil oo aan la magacaabin ayaa sheegaya inaysan jirin rajo muuqata oo ku aadan in heshiiska dib loo saxiixo arrintaasi oo la sheegay inay caraq u dhalisay Urdun ilaa iyo hadda dawladda Urdun kama aysan hadlin wararkaasi ayay bishii February warbaahinta al-mamlaka ayaa waxa ay sheegtay in xukuumaddu ay diyaarisay qorshe kale oo lagu xaqiijinayo amniga biyaha dalka si aan loogu tiirsanaan heshiis kasta oo dibadda ka yimaada heshiiskii ugu dambeeyay ee labada dhinac kala saxiixdeen ayaa waxa la gaaray sanadkii 2021 markaasi oo Israa'iil ay ogolaatay in Urdun ay siiso 50 milyan oo mitir cubic oo biyo dheeraad ah sanadkii iyadoo heshiiskaasina ka farcamayeen heshiiskii Wadi Araba xiriirka Ammaan iyo Tel Aviv ayaa sii xumaaday tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza iyadoo Urdun si cad uga hortimid qorshe kasta oo lagu barakacinayo Falastiiniyiinta isla markaasina dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeeda Israa'iil isla markaasina lagu cambaareeyay dagaalka Israa'iil ee ka waday marayka Gaza waatahay qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka aynu haatan u wayacano waxaana ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee aaska hogaamiyaha sare ee Iran meydka Ali Khamenei ayaa xalay waxa uu ku hoday magaalada Qom ee barakaysan dadka Shiicada waxaana la sheegayaa in maalinimada bariya loo qaadi doono magaalooyinka Najaf iyo Karbala oo ah magaalooyin u barakaysan dadka Shiicada madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa waxa la sheegay in uu u safri doono waddanka Iraq maalinimada maanta oo Talaada si uu uga qayb galo aaska iyo sidoo kale munaasabadaha ee janaasada lagu tukanayo Ayatollah Ali Khamenei hogaamiyihii sare ee waddanka Iran oo lagu dilay weerar Israa'iil iyo Mareykanku ay qaadeen bishii February 28 waxaana la sheegayaa in marka la geeyo magaalooyinka Najaf iyo Karbala kadib in dib loogu celin doono waddanka Iran halkaasi oo markaa lagu aasi doono wixii warar ah ee arrimahan ay ka soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamij ka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo